فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. الرحمن الرحيم. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. nabadgelyo aad baan idin salaamayaa dhammaantiin sharafi korkiina ha ahaato. ramadaan kariim waa astaamihii imaanshaha qiyaamaha. waxay inoo joogtay markii la dilay masiixu dajaal. kadib marka uu dhinto dajaal, nebi ciise waa uu soo baxayaa. waxa uu u imaanayaa muslimiintii dhibaataysnaa iimaankooda ku dhegay iyadoo fidnadaas weyn ay jirto. markaas buu wejiyadooda masaxayaa nebi ciise muslimiintaas. markaas buu darajadooda jannada u kala sheegayaa. way ismarxabaynayaan farxad iyo hoggaan qurxoon. kadib baa alle nebi ciise ku dhihi doonaa, ciisow ummad waxaan soo fasixi doonaa cid celin kartaa aysan jirin. mu'miniinta buuraha korkooda kula carar. markaas bay mu'miniintii buuraha korkooda ku carari doonaan. kadib waxaa soo bixi doona qoomkii waaweynaa ee ya'juuj wama'juuj. ya'juuj wama'juuj waa ibnu aadam, quwad weyn. sidaan wada ognahay haddaan dib u milicsano xilligii la halaagay qowmu nuux waxaa badbaaday oo keliya mu'miniinta iyo nebi nuux oo keliya. inta kale waa la halaagay. sidaa darteed waxaa la yidhaahdaa waa durriyaddii nebi nuux calayhi salaam. ya'juuj wama'juuj waa laba qabiil oo aad u waaweyn. waxay ka soo daadan doonaan meel walba oo sarraysa. waxay fasahaadin doonaan dhulka oo dhan. waxay wada cabi doonaan biyaha dhulka oo dhan. way wada cuni doonaan wixii ka hor yimaada. goortay dhammeeyaan wixii dhulka joogay oo dhan, kibirkooda waxa uu gaarayaa heer ay dhahaan dadkii dhulka joogay dhammaan waynu dhammaynay. waxaa inoo soo haray oo keliya kuwa samada ku nool. waxay ku tuuri doonaan fallaaro iyo leebab. markaas buu alle fallaarihii oo dhiig leh u soo celin doonaa si uu ugu fidneeyo rabbi. waxay dhihi doonaan wixii noolaa oo dhan waynu ka adkaanay, wax inoo dhiman ma jiro. markaas buu alle ku sallidi doonaa tixri sangaalo la eg. markaas buu qoorta ka geli doonaa dhammaantood. iyagoo dhan buu daadin doonaa amarka rabbi. markay dhammaadaan qoomkaasi sidaa bay ku baabi'i doonaan dadkii kibirka badnaa. meydkooda ayaa meesha u wasakhaynaya. nebi ciise iyo mu'miniintii ilaahay bay baryi doonaan. waxay dhihi doonaan, ilaahow qurunkaa naga qaad. rabbi baa shimbiro waaweyn u soo diri doonaa. iyaga ayaa fogeyn doona meel uu rabbi og yahay ayayna u fogeyn doonaan. kadib waxaa imaan doona roob wada nadiifin doona wasakdoodii oo dhan. isbeddel qurxoon baa dunida ku imaanaya. barwaaqay mu'miniintu galayaan. dhulkii baa barakoobaya oo barakadiisa soo naqaya. intaan qaybta xigta ku kulmi doonno nabad. فاقصص القصص لعلهم يتفكرون.